waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto, waxay u daalaysaa inaad nasato, waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa in aad faraxdo adiga. Video iyo sawir la keenay oo internet iyo Facebook lagu soo tuuray, ha ka qaadanin diintaada. taas diin ma aha, ha ka qaadanin diintaada halkaa. Facebook yaanu diin kuu noqonin, Google yaanu diin kuu noqonin, bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada, kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warasatul anbiyaa ka qaada. kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee, luqad walbay ku hadlayaan, luqadaadii hooyay ku hadlayaan. ka qaado culimada dhexdhexaadka maanta haysaa. ilaahu ixsaanka ha ka dhuminin hooyo, inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin. sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado, jaarka in lainama si ahe ogow. waa wax jannada lagu gelaya haddana, laakiin annaga waa isku caynaa, waa isbisiini. kii wadada qashin ka qaadayo, xaaqayo, nadiifinaya, waa isbisiini. shaqada isbisiini. rasuulka xalkeena keliya ma ahe salawaatullahi wasalaamu calayhi, annaga keliya arrinteena ma xalliye, xayawaanka xataa wuxuu u yahay maxay xal buu u yahay sala allahu calayhi wasalam. waana dadka mu'miniinta ay leeyihiin kuwa alle iyo nabigooda rumaysan, maalinka qiyaamo rumaysan, oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dikriga ilaahay. alaa bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali lagaa yahay, mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin? ilaa tigidkaagi waad wada tahay. ku salli, salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannadee. ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan, waa midda keliya, dhaqanka keliya ee caalamka maanta xal u ah, oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakriga iyo kala tagga irdhowga qaxa maanta jira diinta keliya xallin karaysa weeyaan. wallaahi haddaan si dhib u qaadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أما بعد، إخوة الإسلام، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال سلام ديرهن وقالي الدبديت حلو وحين كسو هذا اللي رسول كان صلوات الله وسلامه عليه إن إلهي أو دورتي، إلهي إن أو دورتي أو دورت كدورتي خلائق ذو أردن، إن أو هدنا أو دورتي إن أو نقضه خاتم النبيين، inuu haddana u sii doortay caalamka oo dhan inuu u noqdo rasuul oo kitaab loogu soo dhiibay ilaa qiyaami saaca, oo aanu midna sheegan karin nebi rasuulkeena dabadii sala allahu calayhi wasalam. laakiin ay iman doonaan dajaaliin, kadaabiin ah, beenaalayaal ah, faajiriin ah, mujrimiin ah, dhaalimiin ah inay iman doonaan. siduu u yimid musaylimatul kadaab, una iman doono dajaalul acwar, dad ku dhow 30 ayuu leeyahay xabiibka salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa iman doona oo idaylkooda nebinimo sheeganaya. nebi iga dambeeya ma laha, anaa ugu dambeeya, ogaada, anaa laygu khatimay ayuu leeyahay xabiibkeenu sala allahu calayhi wasalam. marka caawa rasuulkaas sida ilaahay inoogu dooray sala allahu calayhi wasalam ayaan rabaa in yar siduu u ekaa. waa kuma محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد واكوما إن إذن شيئا دونا ياك سدو أكها إن يرنتو إلهي يفهم سيو. مركا هوري إلهي وحولي هاي كتاب كيسكولي هاي رسولك وبشر، لكن ولو وحيو ذا، ولو وحيو ذا بشر الله ما كينين وحو بشر كالدير هاي إن لو وحيو ذو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. waxaad ku tiraahdaa insaankan, waxaad ku dhahdaa anigu waxaan ahay un bashar, laakiin
basharka kale waxaan dheerahay waa la ii waxyoodaa laba shayba rasuulka maaragtay in badan buu dheer yahay laakiin laba ayaan rabaa inaan taabto in uu yahay bashar iyo rasuulka inaanu hurdin indhihiisun inay hurdaan laakiin qalbiga aanu ka hurdin sida basharka kale ay uga hurdaan labadaaba waa nooga duwan yahay xabiibka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi jaabir radia allahu canhu ardaah waa uu ina dhahayo sida ku sugan saxiixaynka kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa naama tanaamu caynuhu walaa yanaamu qalbuhu haddii uu seexanaya xabiibka sala allahu calayhi wasalam keliya ishiisa seexan jirtay qalbigiisu ma aanu seexan jirin subxaana allah ya ma aha rasuulka alle inoo dooray sala allahu calayhi wasalam madaxdeennoo kale ma aha madaxda caalamulislaam oo kale ma aha ya oo marka ay seexanayaan saacado fara badan dhimanaya naftuba ay ka tegayso oo kale ma aha su u seexanaya xabiibka sal allahu alayh wasalam adigu kaa fikiraya addoontii allah addoonkii allow xaaladaaduu ka fikirayaa seebuu u seexanayaa badbaadadaaduu ka fikirayaa seebuu u seexanayaa damiirkiisa ma siinayo hamigiisu siin maayo in uu seexdo wallaahi saacadna inaanu dhiman jirin rasuulka oo adduunka aanu ka maqnaan jirin out of service wallaahi weligii ma aanu noqonin indhaha unbuu isku qabana eeg maalinkii oo dhan buu ordaya oo dacwo u ordaya dadkii islaaxinaya u adeegaya insaankii habeenkii marka la gaarana waxa waaye caaisha waata radia allahu canha wa ardaaha waata ay leedahay yaa gomadihiisa ayaa halkaa kubabkaa ayaa barari jiray siduu ilaahay ugu taagan yahay oo uu caabudayo oo uu ugu tukanayo qur-aan u akhrinayo u ooynayo muxuu ka seexan jiray rasuulka waqtigiisa 24 saac in yar intaa yarna indhaha unbuu isku qaban jiray laakiin qalbigiisaa soo jeedi jiray adigu kaa fikiraaye ma ka fikirtaa adiga dantaada adduunkaaga iyo aakhiradaada si u wanaagsanaan lahayd buu ka fikirayay ma ka fikirtaa xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam ya ma ka fikirtaa maya midkeena kama fikiro sida xabiibka qalbigiisa aada ugu weyn tahay adigu qalbigaaga ma ugu weyn yahay xabiibka abadan inaga oo dhan isku mid baynu nahay xabiibka sala allahu calayhi wasalam ma aanu seexan jirin okay xabiibka waa kaa jiifkiisii iyo xaaladiisii sidaasay ahayd indhahan buu isku qaban jiray laakiin qalbigiis wuu soo jeedi jiray xadiiskanu waa saxiixeynku ku sugan yahay ayib u kaalay baraa waa ka haddana sidoo kale radia allahu canhu wa ardaah uu leeyahay sida ku sugan saxiixeynka kaana صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا الله صحابي وحو إنوغا شاكينيا حالة رسولك مركو أجيفنيو mid kale wuxuu inooga sheekaynayaa rasuulka siduu u ekaa wejigiisa abuurkiisa wajoogiisa ayuu inooga sheekeynaya wuxuu ahaa buu leeyahay xabiibka sala allahu calayhi wasalam ya ka ummad oo dhan khalqi ilaahay midka ugu wejiga quruxda badan buu ahaa haddaad qurux doonaysaan ya haddii qurux aad wax ku dooran lahayd xabiibka waa ka ugu qurxoon ugu weji qurxoon weeye caalamka oo dhan haddaad abuur iyo joog iyo muuqaal aad dooran lahaydna kan ugu abuurka wanaagsan ayuu ahaa xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam dhan walba muuqaalka wejiga qaabka uu yahay timaha dhegaha sanka indhaha afka bishimaha maaragtay qoorta isbaalaha maaragtay xabadka lugaha cajiraha jilba dhan walba gacma dhan walba dhererka xataa dhan walba midabka intuba wuxuu ahaa xabiibka sala allahu calayhi wasalam ya ka ugu wanaaga badan buu ahaa ya cid ka qurux badan xabiibka ilaahay ma aanu abuurin isagaa doortay eeg ilaahay siduu ku jecel yahay ilaahay wuxuu ku dooray kii khalqiga ugu quruxda badnaa ugu abuurka wanaagsanaa ugu muuqaalka wanaagsanaa ayuu ilaahay ku dooray عشان أديك وناكسن أدونك الله أدونتي الله يأجو أديك قروح بدن وح حبيبك قروح بدن لوجود دوري أديك قروح بدن إلى الصعود كعب ابن مالك واك صحابي كله يا وحوليه هي مركي دي دبدا عي دجال كي تبوك
إلهي ما ركتاي لو حناقي دتكي لهد لوايين إن مدأه وكمركي دم بالتوبة دي اللي أقبلي oo sida aadka u farxay xabiibka sallallahu alayhi wasallam isaga xataa uu murugeysnaa toobadiisa soo daahday Kacb radiyallahu anhu wa ardaa markii toobadii laga aqbalay waa ka uu imanay xabiib sallallahu alayhi wasallam saxaabadii oo dhan baa soo dhaweynay albaabkii masaajidka ayaa lagu salaamaya lagu caaniqeynaya lagu dhunkanaya lagu hambalyeynaya isagana wuxuu sugi laagyahay xabiibkiisa sallallahu alayhi wasallam inuu u tago xabiibkana wuxuu sugi حبيبكيسان كله صحابيكيسان كله إنه يمادو مركاسو أتجيا وأودها يأج فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه الله markaan gacantiisa gacanteedii dul saaray gacanta shariifada ee udgoon ee jilcan markaan dul saaray sallallahu alayhi wasallam ya isagoo waliba aad wajigiisa u ifayo wuxuuna ahaa xabiibka sallallahu alayhi wasallam marka uu farxo wajigiisa aad u ifi jiray waxaabad moodaysaa kaannahu qit'atu qamar قبل ضيح بال نسكت أياد مودا وجهي إني كسارن تهاي وجهي سدو ويفيو مر والباء فرحه سدويان وجهي سافرح جري وجهي ساد دلال جري النور جري وكنا نعرف ذلك منه تانا وانو جرين جرنا وجهي سان كجرين جرنا إنه فرح سينها إن كله وجهي إفتين كاسان كجرين جرني وكنا أيوليه ما هي سير كلي waxa ku sheegaya xabiibka wajigiisa markuu farxa inuu ifi jiray sida dayaxo kale uu noqon jiray aniga garan jiro Umar baa garan jiray oo Ali baa garan jiray oo maartay Uthman oo Abdullah ibn Umar oo ibn Mas'ud oo Jabir oo Aisha Saud oo Hafs umada oo dhan wa kunna na'rifu dhalika minhu Allahu akbar يا وحكاغا ورمي حبيبكا oo sida dhahayo waa ki salaame ogow saxaabigi salaamay ee gacantiisa gacanta shariifka ah taabatay way wax kaaga waramay u dhawaaday laga yaabay inuu dhunkaday kaasa kaaga waramay la soco Allahu akbar bimaana waa wada yaa ku soo wariyay waa Bukhari iyo Muslim ogow wax ka saxsan male bacda al-Qur'an Bukhari iyo Muslim Allahu akbar bara xabiibkaaga bara xabiibkaaga yaan lagaaga sheekaynin yaan laga caayin baro aad jeclaatid xabiibka ilaahay ku dooray baro Jabir ibn Samura waa kan saxaabigan jaliilka ah isagana wuxuu inooga waramayaa radiyallahu anhu wa ardaa wuxuu inooga waramayaa xaaladii uu ku arkay xabiibkiisa sallallahu alayhi wa sallam وكودايو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر هبين وحان أركو ليه حبيبك صلى الله عليه وسلم وديح جره هبين إفيا هبين عد أيان أركي حبيبك صلى الله عليه وسلم ديحي باس دحي طوان أما أفر طوان أما شن طوان مركاسان مركو إيغهر يمد وحون حرنا قذوذا مر الله المركو إيغهر يمد أيان رسول كان في رياه ديحان إيغا رسول كان إيغا ديحان إيغا رسول كان إيغا ديحان إيغا صلى الله عليه وسلم فإذا هو عندي أحسن من القمر وحبت بدا أنيغا نفس دايدا أركتي دايدا ديحا سدحي طبناتك أفر إطبناتك شن إطبناتك رسولك إيغا لقروح بدنا لو ديناع بو uga shabahayaa wareega uu dayax wareegsan yahay rasuulku wajigiisa mudawar ayuu ahaa iyo ifka quruxda badan ee diiran ee dayaxu leeyahay Allah ya labaduba waxa dhahayo waa qofkii arkay ogow la joogay mid maanta joogoon waxba ogeen xataa aanan rasuulba ka warqabin aqooni wala magaciisa aqooni aan wax yar kaaga sheegi karin bal taariikhdiisa aqoonin bal sunnadiisa aqoonin ayaa حسد غل حقدي ورحمه نعيب أورك أجبو حدرتي أيها حبيبك عاية صلى الله عليه وسلم
مغلنا مركز دجالين توركوضا هدقي سنين برتا حبيبكينا صلى الله عليه وسلم وعن ذين شيء جينا وبخاري مسلم صحيحينكم ويان أو يكسورين وصحابة لكل مي حبيبك صلى الله عليه وسلم ربيع بنت معوذ صحابي الجليل كأه قبل ديسا ورضي الله عنه وارضاها وات ايلاده هي ولا ويدي نوغا ورن باليري اديغا اركي حبيبك نوغا ورن يا نو صفه باليري الرسول صلى الله عليه وسلم مركاسا waxay tiri لو رأيته لقلت إن الشمس طالعة حداد أركي لهيدين وجهيسا قرحدا إفك قبو صلى الله عليه وسلم وحاطه لهيدين قرحدي با صوبحيسا الله marka qoraxda ay soo baxayso ma aragtaa oo ay ku yara qoslayso oo ay fooda la soo baxdo oo ay ku dhoola cadayso cirka dhulka caalamka sidoo u yara ifay ma aragteen sidaas oo kale ayuu u ifayay xabiibka sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar oo kale hadana saxaabadu ma aanay istaagin ilaa ay nooga soo waramaan dhididka rasuulka sidoo u ekaa dhididkiisa sidoo u ekaa sallallahu alayhi wasallam war siday uga sheekeynayaan nin kale ama qaa'id kale ama sayid kale oo looga sheekeeyay male wala nabi kale wala rasuul kale oo looga sheekeeyay malaha Allahu akbar dadkan ka sheekeynaya xabiibka Allah u dooray xabiibka Allah doortay sallallahu alayhi wasallam saxaabadan saadiqiinta ah idaylkood runlooyaalka mukhlisiinta ahna ilaahay baa u dooray sidee u soo waramayana waa saxaabadu been ma sheegan saxaabadu xadiisku waa muslim Anas baa wuxuu inooga waramayaa dhididkii rasuulka sidoo eeka sallallahu alayhi wasallam أنا صوت قرنسان طبعا رضي الله عنه وأرضاه وخادمك رسولك أؤذيقي صلى الله عليه وسلم مدوه طبعا سنة يؤذيقي وكأورناهيو أنس بن مالك ويانا أقو رضي الله عنه وأرضاه وكأورناهيو كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ كان أزهر اللون رسولك صلى الله عليه وسلم مدبكيس وحوها أزهر وحوها زهر وكل أبوح وكل بمعنى وعدان جذود وليهيو وعدان جذود اسكول حجر جذود طبعا ما هين عدان أنا ما هين جذود وليهيو عدان وليهيو جذود أيها مدبكيسك أو مذب يرد الذهبي وكلوا لها صلى الله عليه وسلم كأن عرقه اللؤلؤ مذب كائسة ندد مركو كيمادو ندد بدنا حبيب صلى الله عليه وسلم ندد مركو كيمادو أو مذب كدل فول أو كدل صعده وحابد مدحبة اللؤلؤة كسل حبيبك صلى الله عليه وسلم الله أكبر علي ابن أبي طالب نواكن ورهيو كرم الله وجهه ورضي الله عنه وكورهيو صحابي جليل كأه وكورهيو كان العرق في وجهه اللؤلؤ لم أرى قبله ولا بعده مثله ما أنا أرك أيوليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما أنا أرك ديدت كاسو كله هورن وما أرك دبن وما أنا أركن الله قال قف كان كو أركي واكي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب كان أديق بدن حبيب كان قروح بدن حبيب كان أبور كيس إلهي قرحيي حبيب كان إلهي إنو دوري كسل لحبيب كاغا صلى الله عليه وسلم سعد قرتي معها وكالي حدنا لذد كان لبسدي سميدب كيسي ما دام يكون شيئين سدو عرفي لذد كيسا والله وحي كالا حرين إنانو جرين علمي فرح بدن معرفة فرح بدن إن بدن يردينا أما أكسونا جهل أي كريس وين حبيب كود صلى الله عليه وسلم مركز اللي حين دجال انتو ما تقولش كينا مركز نعسينا لكن سيدان هدو أقرن لها أقونتان أولهان لها وحويان دفاع بأنقن لها وكل دفاع يا حبيبك صلى الله عليه وسلم سابوك وأنس بهدنا إنه ورميا حديثكنا مسلم أيا صوصاري وكأورها يهو يدي سليم أيا وحي كل هذا يا رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا فهو أطيب من طيبنا
dhididkaaga waxaanu ku darsanaa cadaradeenna, uunsigeenna, barfuunadeenna, waxyaabaha aanu isku udgino ayaanu ku darsanaa, isagaa ka udeyg badan cataradeenna. allahu akbar, allahu akbar. ya maxaa wacay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam daahiran wa baatinan wuu ka carfaayey, nadiifuna ka ahaa, wasaqoo dhan ma lahayn, basharu ahaa, laakiin ilaahay baa barakeeyey xabiibka sala allahu calayh wasalam, ilaahay baa carfiyey. ma aha isaga inuu ismarmarinayo, wuu jeclaa catarka, barfuunka waxyaabuhu ugu jecel yahay ayuu ahaa tiibka, laakiin isagoona marsanin ayuu sidiisa u carfayey, dhididkiisa carfayey xabiibka sala allahu calayhi wasalam, sida axaadiista saxiixa ah iyo yani akhbaarta saxiixa siday nagu soo gaaraysa culimmadeenu noo soo warinayaan. mar kale ayuu anas haddana inoo waramayaa. anas 10 sano rasuulku u adeegay sala allahu alay wasalam oo uu salaamayey gacanta shariifka ee udgoonay jilcan, gacantiisuu nooga waramaya sala allahu calayhi wasalam. waa ka uu dhahayo saxiixaynka siduu ku sugan anas, waa ka uu dhahayo maa masastu xariiran walaa dibaajan alyana min kafi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا تابن حرير iyo diibaaj waa noocyada xariirta noocyadeeda kala duwan. ma aanan taabanin xariir ka jilcan kafka rasuulka sala allahu calayhi wasalam, gacanta rasuulka marka aan salaamo ya xariirta teeda jilcan wuu kasii jilcanaa kafkiisa sala allahu alay wasalam. ma aanan urinin miski iyo cambar, waa labada ugu carafta badan waxyaabaha carfa caalamkee ya ma aanan urinin miski iyo cambar ka caraf badan riixda rasuulka sala allahu calayhi wasalam, dhididka rasuulka, carafta rasuulka sala allahu calayh. rasuulkeena udgoon ku salli xabiibkaaga. rasuulkaas waa kan lagu dooray, ogow waa kan lagu dooray, addoonkii allah addoontii allah. rasuulkiina sidaa ayuu u carfayey. ma aha ammaan badan oo annaga aan ka badbadinaynana ma aha. waxa sidaa dhahaya waa anas ibni malik, waxa ka soo warinayeen waa bukhaari iyo muslim ee ogow. waa anas khaadimkii rasuulka weeyaan sala allahu calayhi wasalam. jaabir waa ka haddana radia allahu canhu waardaa, sida ku sugan saxiixu muslim, waa kuu dhahayo xabiibka ayaa dhabanka iga taabtay. allahu akbar, dhabankaygu taabtay. ilaa iyo hadda waxaan dareemayaa, muddaa ka soo wareegtay, waxaan dareemayaa qabowgii gacanta rasuulka iyo carafteedii ayaan dareemayaa. waxaabad moodaa in gacanta uu ka soo bixiyey يا من جونة عطار، كأنما أخرجها من جونة عطار. يعني dadka catarada maaragtay catarada iibiyo dukaamada bahal waxa jirta barfuunka ay ku keenaan, يعني tanig ay ku keenaan catarka jira, taa inuu ka soo dhex bixiyay gacanta intuu gashtay inuu ka soo bixiyay ayaad moodaa oo uu dhabankayga ku taabtaad moodaa carafteeda. Allahu akbar, Allahu akbar. كسل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. والله ليال رسول كان واكاه. أنس الحوليه هدانا تنا كسو ختمياي رضي الله عنه وأرضاه وحوليه رسولك صلى الله عليه وسلم ممر ودك مد مقالة مدينة ودد هذا ممر ودوينك مقالة مد كمدا ممر إلا هدي أمره دتك أورن ويجرنين وددن إن أكبح حبيبك صلى الله عليه وسلم. wadadan inuu maray rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dadku way garanayaan dadka markaas waxay dhahayaan maxay ya wadadan waxa ku baxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. say ku garanayaan carafta ku haraysa iyo udayga ku haraya wadada markuu ka taga rasuulka sallallahu alayhi wasallam. ya riixdiisa caraftiisa udaygiisa ayaa wadadaas oo dhan ku harayay. markaas guryaha hareeraha oo dhan baa carfinayay xabiibka sallallahu alayhi wasallam. markaas ay dhihi jireen wadadan waxa ku baxay xabiibka sallallahu alayhi wasallam. rasuulkan quruxda badan, rasuulkan ifaya, rasuulkan udayga badan, rasuulkan dhididkiisa lu'lu u eg yahay, maxaa lagu dooray addoonkii Allah, addoontii Allah, maxaa leedin kugu dooray idaylkiin cashan idinka carfaaya,
عشان إذنكا أدقون إذنكا قروح بدن إذنكا إفيا وحدونيا إن إفيو نولشين أغادا وحدونيا إن عرفيو نولشين wuxuu doonayaa inuu qurxiyo mustaqbalkiina idinkii awlaadiina waa goormase markaad qaadataan sunnadiisa qaadataan sharcigiisa qaadataan dastuurkiisa hogaanka isaga u dhiibataan noloshiina way carfaysaa noloshiina way ifaysaa noloshiina lu'lu'a waa ka qurux badnaanaysaa ka if badnaanaysaa dayax ka if badnaanaysaa adduunya aakhira waad liibaanaysaan idinkaa dad wanaagsan ah dad ilaahay doortay ah rasuulkiina waa kaa أقبلنا هنا قاضننا هنا نقوننا سماعون للكذب هنقوننا كوا بنت أولك رارعية مقلئك هنقوننا هدغيساننا دجالين توريغا يا عالم كالكور لو وريغا يا بنت لو وريغا يا كذابين تان بنت لو وريغا يا فاجرين تان بنت لو وريغا يا ظالمين تان بنت لو وريغا يا عايا يا دين تادا مرنا بوركودا هدغيساننا حميدا أي لو وريغيان فتنت أي لو وريغيان كم مغنقلا الله هدي لما مغنقلا وح مغنقلية كم مغنقلا علمي جيسا كم مغنقلا وبرتا دفاع يتيد يدير هيدين نقضي إذن حفظيات كنا ودقشاني برتا علمنا برتا كوان وركوضا هم مغلنا دجالين تان هم مغلنا وركوضا كذابين تان وركوضا هم مغلنا والله وايقتلو قرآنيين تن قرآن ككلية كوف معينة قرآن ككلية أمبانو ما ركتاي قادنينا سنة وحبا كمجرو سنة وتافه وعن تربقش وأساطير الأولين كوا نهاية وركوضها قادنينا والله واد خساريسان رسول كانوا كسو شاكيني ما أنت أقوم بد أوليده الرسول كينا سدو أكا يا صلى الله عليه وسلم كوكالصون هذا الرسول كينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحقوها الله حبيبك صلى الله عليه وسلم معها هوديسة سيدينو كله دجالين تان كذابين تان هودو ذا كهض ليو كله أو إبليسكو كو أديغانية على شد وشقيستيال كأه مرتزقين تأه هنقري راعة لون راعة إما عيال كأه هودو أي اسكود ودون حيران سنة وريرسن كوان هودو ذا كهض ليو كوانو كله معها حبيبك وما ينطق عن الهوى هودي سكما هدلو بين مشيغو وكم مستحيل ومعصوم إن هو إلا وحي يوحى لكن وحكو هدلو وحي لو وحيونيو وبشر قروح ضال إلهي قلنا ما يستري وحو البا أو إلهي دورتي وحي نوكو أيدي ويان قرآن كانوا أقادا لن يرواه كلامك إلهي سنظنا وكلامك أما هذا الكي حبيبك صلى الله عليه وسلم مركي أنا مرنبا مرن لقاك جلين سنة هذا يعني مرنا مرن لقاك جلين لبضاس هديات قبستان فتن أوردن واتكبت بهذيسان السجان نقلت دردار بحبيبك صلى الله عليه وسلم وقتها فتن تتمادو حق له عررا كتابك سنة جوس دمبيت كوكو قبسدا وبدباديسان واكدهيا هبين دمبيت انتين اسجا ايمانينو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto waxay u daalaysaa inaad nasato waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa in aad faraxdo adiga video iyo sawir la keenay oo internet iyo facebook lagu soo tuuray ha ka qaadanin diintaada taas diin ma aha ha ka qaadanin diintaada halkaa facebook yaanu diin kuu noqonin google yaanu diin kuu noqonin بل دينتا وناكسن إسلام كقادة كتابديسا كقادة أو علمديسا ورثة الأنبياء كقادة كوا ربانيين تا وحكا بدن مالها عالم كي لغد والبيكو هادليان لغد هذا هو يكو هادليان كقادة علمدا ما انت هيسا إله إحسانك هكذا من الهويو انت هويو يعني إحسانك هسمي إله هكذا من سلسلة دون يا جارك إنه هذا جارك إنه إنما سيئه أقول يا وواحد جند لو قلي حدنا لكن أنا واسكو عيناه واسبسيني كي وضد قشن كقاضي وحاقي ونظيفني واسبسيني شغال اسبسيني
rasuulka xalkeena kaliya ma aha salawaatullaahi wasalaamu calayhi annaga kaliya arrinteena ma xalliye xayawaanka xataa wuxuu u yahay maxay xal buu u yahay sallallahu calayhi wasallam waana dadka mu'miniinta ay leeyihiin kuwa alle iyo nabigooda rumaysan maalinka qiyaamo rumaysan oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dikriga ilaahay alaa bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali laga yahay mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin ilaa tigidkaaga waad wada tahay ku salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannadii ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan waa midda kaliya dhaqanka kaliya ee caalamka maanta xal u ah oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakhriga iyo kala tagga irdhowga qaxa maanta jira diinta kaliya xallin karaysa weeyaan wallahi haddaan si dhab u qaadan